الله الرحمن الرحيم ورمرتياد شاني لباتن كأغسطس سنة لبضة كونية شاني لباتن يضل تحقلنا يا مهمة من لماذا قرن حسلوني السياسات يدولنا لودا يهي islamarkaana mudnaanta la siinayo geedi socodka dawladdiska Soomaaliyeed ayaa dawladda federaalka Soomaaliya iyo qaybo kamid ah madasha samata bixinta Soomaaliyeed oo ay kamid yihiin Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan gudoomiyihii hore ee golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ahna xubin kamid ah golaha shacabka Soomaaliyeed haddana ah gudoomiye ku-xigeenka madasha samata bixinta mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliyeed iyo madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya wasiir Daahir Maxamuud Geelle ahna afhayeenka madasha samata bixinta ayaa waxaa si wada jir ah u soo saareen qodobadan soo socda waxaa la isla gartay adkeynta madax banaanida iyo midnimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya labo waxaa la isku raacay in laga wada shaqeyn qaato xoojinta amniga dalka iyo la dagaalanka argagixisada saddex baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa dooranaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya sidoo kalena golayaasha wakiilada dowlad goboleedada ayaa dooranaya hogaamiyayaasha iyo ku-xigeenada dowlad goboleedada afar madaxweynaha ayaa leh awoodda uu ku magacaabo ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyadoo uu ansixinayo golaha shacabka kalsoonidana kala noqon karo shan waxaa la isla gartay in ururkii ka hela ugu yaraan 10% ee xubnaha baarlamaanka Federaalka Soomaaliya uu noqdo xisbi qaran hannaanka doorashada dalka waxaa lagu saleynayaa xeelka doorashooyinka 2024 iyadoo la tixgelinayo qodobada warmurtiyeedkan ku xusan toddoba waxaa lagu heshiiyey in si dhaqso ah loo gudagalo qabashada doorashooyinka golayaasha deegaanka kuwa dowlad goboleedada iyo tan federaalka sideed waxaa lagu heshiiyey in sida ugu degdega badan loo dhammaystiro cutubyada harsan ee dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya si loo sugo sharciyada iyo geedi socodka dawladdiska dalka sagaal waxaa la isku raacay in si wada jir ah mucaarad iyo muxaafadba looga wada qayb qaato geedi socodka doorashada tooska ah qof iyo cod oo lagu soo dooranayo golayaasha deegaanka golayaasha wakiilada dowlad goboleedada iyo labada aqal ee federaalka baaq iyadoo laga ambaqaadayo isfahanka laga gaaray arrimihii lagu kala aragtida duwanaa waxaan ugu baaqaynaa daneeyayaasha siyaasadda in loo midoobo lagana wada qayb qaato dhammaystirka geedi socodka dimuqraadiyeynta dalka wabilaahi tawfiiq بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين bulshada Soomaaliya meel kasta ay joogto salaameyna assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maalintay waa maalin runtii aad iyo aad maalin guuleed u ah halkan waxaan u nimid in barnaamij soo socday muddo 2 bil ah oo wada hadal u dhaxeeya dawladda iyo madasha samata bixinta aan dhamaystirkiisa aan u nimid anagoo qayb ka ah madasha samata bixinta runtii qodobadii aan arkaynay inay yihiin dabarka qaranka Soomaaliya isku hayo waa isla meel dhignay oo waxay noqotay arrimo laga heshiiyey ha ugu soo horeysay in madaxweynaha Soomaaliya doorashadiisa ay noqonayso mid aad iyo aad u fufan oo bulshada Soomaaliya wada jeedo sidii awalba ay u ahaan jirtay oo baarlamaanka Soomaaliya labadiisa aqal doorashada la horgeeyo oo go'aankaasi ka gaaro ha noqoto midii ismiisaanaanta awoodaha qaranka ama hay'adaha dawladda oo ay caasaan u ahayd ra'iisul wasaaraha Soomaaliya madaxweyne soo magacaabo iyo golo shacab oo ansixiyo iyo golo shacab oo haddii ay dhaliilaan xilka ka qaadi karo codka kalsoonida oo ka waayo amba ha noqoto in dadka Soomaalida ay soo doortaan mudanayaasha baarlamaanka soo galayo si hufan
arrimahaas oo idil waa la isa soo dhaweeyey intaas waxaa dhinac socday oo aad iyo aad muhiim u ahaa oo ku soo kordhay laga soo bilaabo carte bulshada Soomaalida siyaasadeeda waxaa gacanta ku hayay dadka labeenta oo bulshada oo runtii dad fiican ah laakiin dad kooban ah marka arrinkan wuxuu soo kordhinaa oo qof iyo codka barnaamijka oo ku dhex jiray heshiiska aan maanta wada gaarnay in loo dhaweeyo bulshada Soomaaliyeed qof ama ay kala noqdaan mid codeeyo iyo mid loo codeeyo ama mid labadaba isku qabto isku noqdo oo marna codeeyo marna loo codeeyo oo ay noqoto siyaasadda Soomaaliya mid qofka Soomaaliga uu aamino si dhammaystiran inuu wax ka bedelkeeda wax uga leeyahay oo cod uu ku leeyahay arrinkaas marka annaga iyo dawladuna waxaan isla meel dhigno ku heshiinay habkii loo tartami lahaa iyo habkii dawladda cusub ay dhismi lahayd sidoo kale laba group ka nahay dawladda Soomaaliya waa dawladda inay haysato oo xilxilaadeeda go'aan leh annaguna waxaan nahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee mucaaradka ahaa ee rabay dawladda inay kala heshiiyaan hanaanka marka xilxilaadeedka dawladdan dhamaado dadka Soomaalida ay u tartamayaan annaga kaliya ma ahan laakiin cid kasta oo Soomaaliya hal ay u tartami karto waxaan aaminsanahay hanaan lagu qanci karo inuu yahay la dhameystiri karo intaas waxaa sii raaca annaga waxaan ka tirsanay bulsho ama madal la yiraahdo madasha samata bixinta Soomaaliya saaxiibadayna annaga waxaan ku kala aragti gadisnaanay waxyaabaha aan ka wada hadlaynay dawladda ma ka meel mari karaan ma ka meel mari karaan waxay la tahay shirkan markaan qabanayno in dad badan oo iyaga kamid ah ay cad yihiin qodobadii aan ka shakisnayn ama qaarkeen ka shakisnaa inay suuragal tahay in dawladda Soomaaliya ay nala qaadato in la wada qaatay waxyaabaha asaasiga ah waa inoo badbaadsan yihiin wada hadallo kale fara badan way jiri doonaan wada shir ayaa jiri doona xilli siyaasadeed oo amba doorashooyin oo kulay bulshada gali doonta laakiin waxaan ka midaysanahay waxyaabaha asaasiga ah la dagaalanka argagixisada iyo amniga laga midaysan yahay midnimada dalka laga midaysan yahay garoonkii doorashooyinkaas iyo hanaankii iyo jidka loo mar lahayn waa isla soo dhaweynay waana qodobada aad aragteen bulshada Soomaaliyeed waxaan uga tahniyadeynaa isqaadashada runtii annagu markaan labadaas bilood ku jirno wada hadalka dabayaaqadeed waxaa noo qaadmi waayay in aan yiraahdo intaas markaan shiraynay siyaasiyiinta Soomaalida haddaan nahay mas'uuliyiinta Soomaalida haddaan nahay inaan yiraahdo annagu wax waa isla meel dhigi weynay siyaasi daraadeed waxaan u baahanahay cid ajnabiya noocay doonto ha noqotay oo annagana isu soo kaajido oo annagu waxaan iska diidnay iyaga aan ka ogolaano annaga maanta wax iska ogolaano waa mahadsantiin السلام عليكم ورحمة الله وكم سنتين كنت ما تحينوا تهي شرف إلى ميشان كانت تقنو إسافقرت قوة جهن وضبطي هذا واحد الله بلو تقريبا سو سعودي يعني أسر جيدين دي دولد قواسو أحا صوبتي أنك مرتك قولته عن أصوب قلي حزبا سوانت بحنتاهي مدش سوانت بحنته كاسو أحا إن دلكن لو سعوديو systemkii parliamentary systemka ahaa ee dhaqan siyaasadeed dalkan u ahaa salkana ku hayay heshiiskii carta taasoo qeexaysa awood qaybsiga iyo hanaanka loola xisaabtami karo dowladnimada nidaamkii hadda baarlamaanka uu qaatay ee cutubka afraad annaga ee aan ka doodaynay oo ku salaysnaa presidential systemka waxaan u arkaynay inuu yahay nidaam gacanta hal qof ku ururinaya awoodda dowladnimo khatarna keeni kara haddii qof uu maanta damco inuu ku tagrifalo awoodda dowladnimo sidaas darteed waxaan soo jeedinay in dib looga noqdo oo runtii la qaato systemkan parliamentary systemka ee cutubka afraad ku jiray 70% wixii ku jiray cutubkaas afraad maanta waa isla qaadanay madaxweynuhu inuu noqdo madaxweyne baarlamaanka soo doorto رئيس وزراء مدحونا إنه مقعوا لكن أود كلسون سنتي كقادست إن البرلمان كله هاي أرنتي حزبية صدق حزبية الحري إن لقد حزبية قصة ليسن نظام كترشولك إلا بقولك وتون لقاسي سيسن وباهن أرما صحيح أن أرمي رنتي دود عن وصل نقضي عن أقرص إن خير قالوا مثل هذا وحيد doorashadii 2022 dhacday waxay ahayd doorasho runtii dalkan u horseeday meel khatar ah waxaan hadda isla afgaranay dowladda hanaan doorasho annaga mucaaradka iyagu maxaafid ah
mar dambe aan gacanta u gelinayn qof siyaasi ah inuu soo xilo barnaamijka federaalka Soomaaliyeed arrintaas waa arrinta ugu muhiimsan ee shacabka Soomaaliyeed siinaya fursad qofka ayaga mathalaya walow wali kor ay jufaysan yihiin quraastii laakiin shacabka siinaya fursad ah in ay u odeeyaan qof alla qofkay rabaan dalka kan waa inaan ka baxnaa barlamaan iyo xildhibaan jufo iyo dhiig mathalaya waa in maanta waxay ka dambaysa ahlna barlamaan fakar ku mathalaya degaan dal iyo xisbiye intaba marka waxay la tahay arrintan waa guul maalmaha soo socdana si tafaftiran ayaan warbaahinta uga fasiri doonaa laakiin in parliamentary systemkii la soo celiyey ee dhaqanka siyaasadeed dalkan u ahaa iyo in fursad la siiyo doorasho shacabka Soomaaliyeed ee xor u yihiin oo aan qof siyaasi ahaa oo maamulaya uusan jirin waxay la tahay laba fursadood oo runtii dalkan dowlad dhiskiisa qayb weyn ka noqon kara weeye annagana aan horey u sii socon karno waa mahadsantihiin waxaan rajaynayaa dadka inta maqanna in ay soo galaan intii shalay ku maqnayd qodobo masiiri ah ayaa dastuurka laga bedelay waxaan isleeyahay tan fursad waxay u furaysaa inay miiska ku soo noqdaan dadkii gadaal ka tegay ruuxooda oo iyagana loo haystay khad cas inay gudbeen waxaan isleeyahay heshiiska khadii caseed buu qaadayaa ayadana fursadaa jirta in wadahadal lagu soo cesho marka waa mahadsantihiin haddii la yidhaahdo maalmaha soo socdaan si tafaftiran u hadli doonaa mahadsantihiin بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين runtii maanta waxaa la isla afgartay qodobo muhiim u ah dowladnimada qodobadaasi waxaa ka mid ah qodobo taabanaya heykelka dowladda qodobo taabanaya doorashooyinka sida qodobka hanaanka doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya sidaas oo kale qodobka taabanaya ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo qodobo la xiriira doorashooyinka markii loo hadlo shacabka Soomaaliyeed xaq ay u leeyihiin inay madaxdooda doortaan ee xuquuqdoodii siyaasadeed ay exercise gareeyaan ay helaan in badan dalkan wuxuu ku soo jiray doorasho dadban oo mararka qaar marka la eegana caalamka mar hore uu ka soo gudbay hadda waxaan u gudubnay doorasho qof iyo cod loo gudbay runtii waxaan aaminsanahay heshiiskan hadda halkan lagu kala saxiixday oo halkan isfahamka laga gaaray ee wasiirka akhriyay wax walba way ku qoran yihiin haddii qodobadii muhiimka ah dastuurka ku jiray dib looga noqday haddii arrimihii doorashooyinka qodobadii laga wada hadlay waxay la tahay waxaa dhiman un sidii loo aadi lahaa doorashooyin loo aadi lahaa waxaan ugu baaqaynaa axsaabta siyaasadeed ee Soomaaliyeed iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa fursadan in laga faa'iideysto ama dadka raba hadda inay ku soo biiraan samaystaan axsaabta gaari lahaa heshiiskan aad iyo aad ay ugu mahadsanyihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين markuu horeysa maanta dhammaan sidii la wada sheegay waxay noo tahay farxad waxay noo tahay waxaan runtii guul ummadda Soomaaliyeed u soo yeelay waxa waaye in ummadda Soomaaliyeed madaxda waliba Soomaalida oo siyaasiyiinta Soomaalida ah isku yimaadaan wada hadlaan wada hadal horseedi kara heshiis gaari karaan oo runtii dad badan si ka qabeen
saaxiibaday oo qayb ka ahaa madashii mucaaradka qayb ka ahaa runtii ku dhiiraday ku geesiyoonaaday mabaadi'da ummadda Soomaaliyeed soo jeediyay markii hore oo yiri mabaadi'dan waxaan u baahannahay in la ilaaliyo Soomaalidu ku wada jirto marka dambena ku dhiiraday inay qalinka ku duugaan ku dhiiraday waa bogaadina waa runtii waa geesinimo xukuumadda federaalka Soomaaliya runtii ugub inay noo noqoto anaga laftigeeda in mucaaradkii Soomaaliya iyo xukuumaddii federaalka Soomaaliya inay inta wada hadal galaan wada hadalkaas heshiis ku dhamaado iyaduna waa guul ummadda Soomaaliyeed waa example ama misaal runtii wanaagsan oo dayasho mudan waaye sida la wada sheegay waxaan ku baaqaynaa annagoo wada dhan oo isgarba taagan waxaan ku baaqaynaa inta maqan laba qaybood ay ku kala maqan yihiin qayb waxay ku maqnayd xukuumaddan runtii arrimihii ay yiraahdeen masiiriga ahaa oo ay yiraahdeen waxba laga bedelay oo ku maqnayd intii ku maqnayd horta bal inay ku soo laabato oo ay timaado intii kale ay ku maqnayd laftigoodu xukuumaddani u joojin maysana bal horta inay arkaan inay u joojinayso oo ay gogol fidinayso maanta waxaan ku wada faraxsannahay laba bilood oo 25 bishii June ka soo bilowday wada hadalladii soo socday maanta soo gaaray 25 August maanta aan joogno inay guul ku soo dhamaatay ayaan runtii wax loo dabaaldego ayay noo tahay dabcan Soomaaliya oo raw socdo inaan wada hirgelino oo aan u wada dhaqaaqno dhismaha dawladnimadeena iyo dimuqraadiyiintu qof iyo cod waxaa weeye in dadweynaha Soomaaliyeed loo geeyo ammaanadoodii loo xilsho oo ayagu madaxdooda soo doortaan in la hormariyo siyaasadda Soomaaliya waxa weeye in xisbiyo iyo ururo lagu soo galo iyaduna waa horumar kaleeto wixii dhiman oo kaleeto insha Allah taala xilligeeda ayaa loo tagayaa sidii aan u wada horumarin lahayn Soomaaliya siyaasad ahaanna ay horumarin lahayd heshiisna ay ku wada ahaan lahayd Soomaaliya ha guulaysato waxa waaye spirit ama ruux ay u dhisan tahay oo wada guulaysan karnaa inaan qola dhihin anaga guulaysanayna kaligeen inaysan dhihin inaan wada guulaysanayna way fiican tahay marka Soomaaliya ha guulaysato Soomaaliya ha israacdo Soomaaliya ha noqoto assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waayahay بسم الله الرحمن الرحيم waxaan halkan ugu horeyn ka salaameynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaanu kaloo halkan ugu bushaareynaa in guul wax ku ool ah oo taariikhiya maanta ay gaadheen daneeyaasha siyaasadeed ee halkan wada taagan guushaasi guul maxaafadna ma aha mid mucaaradna ma aha sidii loo sheegay waa guul ummadda Soomaaliyeed u soo hoyatay waa tallaabo taariikhi ah oo aynu fursad u helnay in dalkan dabarkii iyo seetadii ku xidhnaa laga furo oo dimuqraadiyad iyo uu guuro dawladnimo loo dhan yahay kelmadda loo dhan yahay aad bay afka ummadda Soomaaliyeed bariyahan ugu soo noqnoqotaa hadallada iyo dhawaaqyada soo baxay loo dhan yahay maanta ka hor waxay ku qeexnay in dhowr boqol ama dhowr oo mas'uul ah ay talada iyo jaangoynta siyaasadda ka wada doodaan laakiin waa loo dhan yahay dhabiga waxay noqonaysaa marka muwaadin walba Soomaaliyeed uu fursad u helo sidii la xusay xuquuqdiisa dastuuriga ah waxaan rabaa inaan xasuusiyo dadka Soomaaliyeed ma aha markii uu horeysay
qarankani uu u hollado ama u jahaysto xagga dimuqraadiyadda 1950 dhammaadkiisii iyo 60meeyadii waxgaradkii Soomaaliyeed oo malaha inaga way aragnimo yara aqoonto beriga yareed xiriirka Soomaaliya ay adduunka la leedahay oo koobnaa intay fadhiisteen ayaa waxay isla meel dhigeen dalkan inuu dal dimuqraadiya noqdo oo dastuur leh horta garashadii beriga jirtay mid la mid ah maanta la yimi waxaan kaloo rabaa inaan ku daro dimuqraadiyiinta dalku horena waa u jirtay haddana hore loo sii qaadaya oo xuquuqda iyo fursadaha ay helaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool dalkan dhexdiisa ama Soomaaliland ha noqoto ama Puntland oo dhawaan bilaabay ha noqotee inay helaan dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed oo dalkooda dhan ku noolna waa wax suurtagal ah oo deegaanada Soomaalida iyo dalkaba ka dhacday waxaan rabaa inaan iyana ku daro adduun weynuhu indhuhu Soomaaliya ku haya adduun weynuhu indhuhu ku haya 25 muddo dheer ka bacdi intii qaranku inaga burburay in maanta dooda aynu ku jirna ay tahay Soomaaliya ma dimuqraadiyad bay u holanaysaa oo xaggaas ay u kicitamaysaa mise dow kala inoo furan inaynu ku soo idlayno inaynu dimuqraadiyad aadno waa wax laynagu bogaadinayo laynaguna qiimeynayo cilaaqaadka adduunka aynu la leelahayna kor u qaadaysa waxaan rabaa inaan saddexda qodob ee masiiriga ah ee run ahaantii labadii bilood oo u dambeysay dooda ugu weyneed ay ka taagnayd ee raggii mas'uuliyiintii iga horeeyay madaxdeedii hore ay xuseen inay ahaayeen waxyaabaha la taaban kareeyay ee kala duwanaanshiyaha afkaarta siyaasadeed muujinayay waa habka loo dooranayo madaxweynaha habka loo magacaabayo ama xilka uu ku waayo ra'iisul wasaaruhu iyo tirada xisbiyada saddex dhardhaar oo waaweyn oo la isku marwaayay bay ahaayeen waxa hubaala haddii aan ku hadlo afka xukuumadda saddexda dhidib oo waaweynaa in xukuumadda oo madaxweynuhu uu hogaaminayo ay la qaadatay oo aqbashay taladii ka timi mucaaradka waa concession weyn wada xaajoodna wuxuu hirgalaa oo midhadhal laga fishaa marka la isu tanaasulo tudaalaha iyo tanaasulka ummadda Soomaaliyeed si ay mid u sii ahaato hore u socoto dimuqraadi u noqoto wuxuu tilmaan ka yahay adayga ay dawladdan Soomaaliyeed ku aragtay inuu dalkan dal dimuqraadi noqdo dastuuriya noqdo qodobka kale ee isna xusuuda ummadan waxa weeye dastuurkan in la dhameystiro federaaleyntana la dhaqan geliyo dimuqraadiyaddana la dhaqan geliyo waa saddexda dhardhaar ee 30 sano u dambeysay Soomaali ay guul ka filinaysay guushaasaan rabaa marka inaan ummadda Soomaaliyeed la wadaagno wixii hadda ka hadhay waa dhaqan gelintii heshiiskan iyo intii inaga maqnaydna inay ku soo biirto oo ay hawshan qaran inala xoojiso ummadda Soomaaliyeed guul baan u rajaynaynaa waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa madaxda halkan taagan iyo inta ka dambaysa ee sida turaalaha leh la jeclada leh waayo aragnimada leh ay doodooda u soo gudbinayeen bilihii u dambeeyay iyo sidii ay arinta run ahaantii aad noola ablaableeyeen guushana la'aantood lama gaadhin aad baan ugu mahadcelinayaa ummadda Soomaaliyeed oo hambalyeynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh